dibadbax aad u ballaaran oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan muslimiinta ku nool waddankani Koonfur Afrika ayaa waxaa shalay uu ka dhacay magaalada Cape Town. dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka muslimiinta ee ku nool waddankani Koonfur Afrika ayaa waxa uu ujeedkiisu ahaa sidii shacabka reer Falastiin ee ku jira gumaadkan loo siin lahaa madax bannaani buuxda isla markaana ay u noqon lahaayeen dawlad gooni ah oo ka mid ah dawladaha caalamka. banaanbaxani waxa uu ka dhacay xarunta baarlamaanka ee dawladda Koonfur Afrika shalay salaadii khudbada kadib waxaana dadkii banaanbaxaasi ka soo qayb galay dawladda Koonfur Afrika ay ka codsadeen in ay taageerto shacabka reer Falastiin. dhanka kale muwaadin Soomaaliyeed ayaa waxaa shalay aroortii lagu dilay tuulada Qaliijiye ee dhacda duleedka magaalada Cape Town. muwaadinkani oo magaciisa lagu sheegay Cabbaas ayaa markii la dilayay waxa uu watay gaari uu lahaa waxaana kooxo bastoolada wata ay ku rasaasayeen xaafadda Qaliijiye mana jirto wax agab ah oo ay ka qaateen markii ay toogteen. waxaa shalay galabtii lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee magaalada Cape Town. Cabdillaahi Qorshe, Royal International TV, Cape Town, South Africa.